بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، قصة كلا أي وحن دونيا أو أن راعين دونو قصة هراء أو أيدو إسوء حسوسي قبر بمال المالمها كميدا إيتي من أنيقو معلم إسكول سارة oo wadanka Denmark waliba ku yaala anigoo macallim ku ah ayaa qof dumar ah ii timid. waxay tiri waxaan doonayaa inaan kula hadlo oo waqti i siiso. waxaan iri samcan wa taacan. xafiiskii baan gabadhii ku kulanay. gabadhii waxay tiri muddo 3 sano ah xusuuso muddo 3 sano ah tiradaasi nin aad taqaano oo hebel la yiraahdo ayaa i guursaday 3 sano ka hor. habeenkii uu meher ku dhacay baana iigu dambeysay in dad damba ma saarin. ujeedada aan qisada kale hayna waxaan rabaa inaan xalaqada dhamaadkeeda aan ishaaro fartana ku fiiqay insha Allah. idinkuna in badan oo kamida aad ka garaabi doontaan arinta inay dhici karto. waxaan ku yiri ma dhici karto. aqligayga magaalada ay gabadhu igala hadlayso iyo magaaladu uu wiilku joogo taqriiban waa 2 saacadood. bay isu jiri karaan oo sida saxda ah waa sida ama 2 saacadood iyo rubi haddaan dambigaba iska ilaaliyo. waxaan ku irsay ku dhici kartaa 3 sano ka hor inuu ninku mehersaday kadibna uusan weligaa ku arkin aydan is arkin isu imaanin. warqisadaasi luqus baa ku jira, laftimir baa ku jirta. gabar ay ka fiirso. waxay tiri waan dhaaranayaa waa sida. waxaan ku iri yaa marag iyo makhraati ahaa yaa meher ka riday. waxay tiraan waa un la ii yeeray, guri baa la igeeyay, wadaada ana garanaynin baana joogay. wadaada ana garanaynin baana joogay. sadaradeed dadka wax meheriya ayadana waa duruus muhiim ah oo in la siiyo u baahan weeye. war haddii reer lagu yiraahdo meheri wadaadna aad tahay waa xubso. war gabadha weligeeda awada ilaa hadal siiya yaa marag iyo makhraati ka inuu aabaha yahay keen magacaaga aabaha magaciisana keen yaa marag iyo makhraati ka ah. walaayada markii lagu soo dhiibana ku wareeji oo gabadhii ku meheri. akhtaab badan baa halka ka yimaada iyo fasaad aad u fara badan. gabadhii waxaan iri ma garanaysa cid ku meherisay iyo cid walaayadaada haysay iyo cid ku wareejisay. wadaad baa yiri igu soo wareeji oo walaalka baaba joogay maxaa dhacay waaye. waxaan ku iri warkan aad iima geline laakiin hebel waan aqaanaaye bal fadhi. hebel baan wacay oo teleefankiisaan hayay. waxaan iri hebel guriga ma joogtaa waxaan aad kaaga codsanayaa inaad kaliga ila hadasho oo meel ayna xaasku fadhiin aad teleefanka la tagto. wuxuu yiri Abu Talha anu wax ma qarsado xaaskayga soo fariisu ku yiri waxaad ii sheegi kartaa waa ii sheegi kartaa. maye waan kaa codsanayaa maye buu yiri aniga xaaskay waxa ma kala qarsanee waxaad ii soo wacday waaba arrin weyn ii sheeg. ma saas aha wixii ka imaada ma taxamulaysaa oo mas'uuliyadda ma qaadaysaa? nacam buu yiri. waxaan ku iri ma jira gabadh magacaas oo saddexan leh oo hadda ila fadhida oo 3 sano ka hor aad isguursay aad mehersatay oo aadan dib ugu soo noqonin. wuxuu yiri la wallah xaaskan aan qaba ee ag fadhida xaas aan ahayn weligay aqdi kuma xidhin mana mehersanin. gabadhina waxay leedahay waa uu i mehersaday kadibna daqiiqadu i mehersadayna wuu tagay xataa habeenka ilama seexanin waana 3 sano. aniga marka waxaan iri okay waa yaani isugaan ku iri marka dibba waxaan u baaray caafimaadka gabadha marka wana meesha warkaan uga socdo waxa weeye war dad fara badan waxay mudan yihiin in caafimaadkooda la baaro. waxa laga yaabaa qofkani inuu nafsiyan u xanuunsan yahay laakiin adigu aadan ogeyn. si aan arinta u xalliyo gabadhii baan maalintii dambe u yeedho waxaan iri maxaad ku qanacsan tahay? waxay tiri waxaan ku qanacsanahay ninka inuu ifuro. ma inta aan baaha anaaba ka fasaqayaan ku iri waxba ma jirin wax meher ma jirin oo xaqiiqo ah.
gabadhii farxad bay la dhimato khayr Allah ha ku siiyo anaba ka fasaqaya ku iska soco wax fasaqaya waligeena laba qof isqabto ma kala fasaqin laakiin waxaan si dhab u ogaaday inaynan wax guur la yiraahdo jirin waligeedna dhicin meeshaas laakiin gabadha ay wax istustay in badan marka dadka caafimaadkooda hala baaro hana la ta'akudo mar labaad waxaan leeyahay culumada intii loo keeno dumarka mehrinaysa arinta xisaabaad aad u fara badan dib ha loogu celiyo qofkan aad guurinayso ma gabar baa mise waa garoob haday gabar tahay meel la soo furay ma laga dhintay hadii la furay ma khuluc baa lagu furay oo madaxeeda iibsatay ma la fasaqay hadii la fasaqay warqadii maxkamadda ma wadataa gabadhan qaabkay ninkani la iskaga furay oo ay u kala tageen waa inuu ninka wadaadka cadeeyo kadibna yaa wali u ah oo yaa adeer u ah oo aabba u ah oo walaal u ah oo ina adeer u ah yaa wakiil looga soo dhigay waxa soo dhan markuu cadeeyo kadib gabadha riximkeedii caloosheeda hadii la furay ciidadii ma ka baxday mise kama bixin waqtigaas oo dhan waxay u baahan tahay waxyaalo badan oo in laga fiirsado u baahan baa jira mafsada aad iyo aad u badanna ay ka dhalan karto intaan waxay qiso aniga shakhsiyan soo martay oo mawduuca ku saabsan aad baa idin salaamaya sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in